السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعد السلامة أصحاب تشرفت له ومدي ليغا بيري ميلكستو كنوشين دمانتين ربادان وناكسن ربادان كريم ربادان كسيدا الله سوغلي أما لوغو جيربا وحبا ما نسوغلينين مانا آنن دونين إنان سوغليو محل هذا قصوينك أيان سو بلابيا من دنبا إن شاء الله bad waxa isoo galiyay today waxa isoo galiyay way ku soo jirabay inaan ka soo hadlo waxa weeyaan wiilkan yarka xaqiiqdi wiilkan yarka waa iga yaabay aniga macnaha neer ma ahan sida ugu dhagan yahay ummadii waxa yaani oo shaydaan aan ogeyn uga hadlayo dad baa shaydaan ku xiran dad baa shaydaan caabuda dad baa shaydaanka la shaqeeya dad baa ku adeegsada so Drake xitaa wuxuu soo qaatay wiil actor ama aan dhaho singer American iyo ayuu soo qaatay kasi waa shaydaan hadduu shaydaanka la shaqeeyo iyo haddii kalaba sababtoo ah kasi waxa weeyaan ونن معناها ودا شيء مريكانك excuse me وانا مريكانك ودا شيء تدد كان ان ديما كلي هيستان حيابا كلي عابدان يعني دad حدو دونان وحبا ان عابدين ويان marka inuu kaas inta soo qaato kuma sal qof ila aadan oo muslimna oo madi nabi maxamed oo ashaata oo ilaahay yaqaan waa laga fiican yahay sidii aniga ila tahay waxay doonaan ku shaqeystaan waxay doonaan hadeen darwa gaalo nobody cares laakiin dadkan inuu yiraahdo wax qof baa ishaan san looga qabtay macnaha shaydaan buu matalaya macnaha qof baa san yiri san waxa weeyaan maxaa la dhahaa dadkan waxay dhahan I love you you know I love you markay tahay waxay dadka dhagoolayaasha loogu talagalay it's a sign language when it's sign language oo sidii tahay ayaa dadkii iska qaateen waa iska dhahaan you know hadana tan oo saana waxa weeyaan peace of course qof kasta yiraahdo aniga aan yiraahdo markaan picture galay peace so I mean qofka bilaadanka lama dhigi karo saas duu yiraahdo shaydaan baa la shaqeys saam pum qofka saas dhahay shaydaan la shaqeeya ama shaydaanka ayuu ku xusaya inuu saas yiraahdo waxa waa mamnuuc war adigan ka hadlaya shaydaanka ma la isweydiiyo horta yaa ku baray ma la isweydiiyo maxaa ku keentay ma la isweydiiyo maxay kugu soo dhacday ma la isweydiiyo miyaa la shaqeysaa ma la isweydiiyo sidee ku barato ma glass baa u gashay ma la isweydiiyo you know sidee ku baratay waxan sheekadan oo dhan aad soo qoftay oo soo waxaysay ma glass baa ka soo qaadatay oo meel baa soo furiisatay miyaad la shaqeynaysay miyaad macnaha kambaniyasha ku shaqeysta la shaqeysaa miyayd ku soo dirsadeen adiga because ummadii dhan waxa bartay hadda wadanka waxa qabsaday bari bulshada waa adiga iyo waxa ka hadlaysa which means you advertising xibad xayeysiinaysaa suuqad gelinaysaa dadkii aan aqoonin oo dhan baad baraysaa of course maba aanan garanayn anigan ma garanaynin waxani waxay yihiin maana garanayn adun baa bartay adun baan ka bartay adun baa macallin ah qofku iska boodi kara saan jak wuxuu ka wada waxaas ka wada cadeemi baa idinkanaya samaxaya qaliilo saan le what the heck isha ilaan gacanta soo marsta show us off ku sameynayso saan walaalo waxba ka qaldan galaaska dadka abraysid muxuu yahay bal waan idin hor dhacday hadal hani ma bixiyo bal wuxuu sheegay taas ayaan ka hortagay speak samixa khaliil cadeynteeda waan keenaya iyadaana tiri cadeynta keen maslax midahe cadeyntiisa waan keenaya iyo cumri labadaba miyogodana haddaan soo daawaday
qosol iyo waxay uga caddahay bahaabay uga caddahay waxaan dhabta arrintan diin weeyaan arrintan waxay taagan tahay dhab qosol iyo kaftan iyo comedy way dhammaatay abti kaftan way dhammaatay qosol wuu isku soo dhammaaday arrintan waa arrin diin ah waa arrin khusaysa dadkan la sixrayo waa arrin khusaysa ummad dhan oo aqliyadeeda ma garanaysaa la bedelayo la jeedinayo waa arrin khusaysa bulsho dhan kooda yar kooda weyn ka aabaha ah ka madaxda ah ku kasta khusaysa in la keenana ay habboon tahay sidaas awgeed caddaynta oo dhammaystiran waxaan ballan ku qaadayaa haddii ilaahay nafta ii daayo in aan bannaanka soo dhigo yaa la shaqeeya isagoo bannaanka usoo dhigaya yaa balaa la shaqeysa markaasuu wixii soo qofayaa waxaan baraha bulshada waa lagu wada jiraa waa laga hadlayaa waxa weeyaan laakiin maxay sixraysaa gabadhaani masrax miday muxuu sixrayaa waraba wiilkii macnaha ay wada hadlayeen xitaa waxay tuseen inay afureen oo ay soomanaayeen yaa baquliga dhanuu soo qaaday waaba soomanay inuu yiri saaxiib yaa kii kale war ilaahay ka cabsi yiri anigu waxaan ahay buu yiri maslaxa wuxuu yiri waaba la oran karaa nin baraha bulshada ku jiro heesa iyo badbooda anigu maxaan ahay yiri wadahaag maxaan mii wada qof oo caan yahay oo baraha bulshada ku jiro iyo haddaanu ku jirinin iyo hadduu saan yiraahdo saan wadahaag saan calaamad adduunka dhan ay isku gartaan waaye oo biis ah saan waxa weeyaan saan dagoolayaasha I love you waaye marka waxay tahay waxyaalaha qaarkood waxaa wiilkan sheegaya waxaa asaga dadka baray ummadii dhan isagaa wuxuu baray shaydaan inuu jiro shirta ka caawda billaah walaalo gadaal isugu noqo caruurahan faraha ka qaad bili-aadankan iska daa waxaan aad sheegaysid diiniin ayuu ku leeyahay wara daliil ayagoo meesha ku jiraa keentay gacan saan la yiri in la saara iyo wax saan la yiri it doesn't prove anything fashaadanaya oo ilaahay ka xiran oo tukanaya oo soomaya oo salaadaya qur-aankiisa akhrisanaya waxaas ku tiraahda ma habboon xasina ku tiraahdeed xaqiiqdii ma habboona ee iskala hir caddayntiina waa tanaa u dhahay caddayntian keenaya fayuus raadis baa tahay war fayuus yaa raadiya dadka indhahooda sixraya ee views dartii u sixraya ee in la daawado dartii u sixraya dadkaas ayaa views raadiye anigu waxaan ahay ilaahay views qofka raba assalaamu calaykum waxaan idinla wadaagayaa waa caddayntii aad sugayseen maalmahan oo dhan horta marka koobaad cid kasta oo nool adduunkan ku nool waxa ay leedahay calaamad ay ka turjumaysa qofkaasi waxa uu aaminsan yahay ama waxa uu daba ordayo ama waxa uu magaranaysaa noloshiisa ku saleeyay haddaan tusaale ahaan usoo qaadano saan haddaan maanta dhaho wax ayay ka micno tahay soo maha haddaan saan dhaho sida dhalinyarada yaryara soo heesa saan maxay ka wadaan geedaan cabaa ayay ka wadaan okay saanna saan soo sheegay waxa weeyaan christianska ayaa isticmaala kasoo gudub waxaa jira calaamado uu allah sheegay subxaanahu watacaala inaa qofka mu'minka ah lagu garto ama muslimka ah wuxuu dhahay alla subxaanahu watacaala muxamedun rasuulullah waladiina macahu ashidaau cala alkufaar ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujadan yabtaguuna fadla min allahi waridwaana halkaa uma socdee siimaahum fii wujuuhihim min athari sujuud waxaa ma garanaysaa calaamad ku samaysay raadkii sujuudda halkaa madowga raadka ma garanaysaa sujuudda ayaa calaamad ku samaysay waa calaamad lagu garto dadka mu'miniinta ee nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam raacay okay dadkan aan caddaynta ku hayo een leeyahay ma garanaysaa shaydaan bay la shaqaysteen aniga miyaa dhahay shaydaan bay caabudeen may okay yaa dhahay shaydaan bay caabudeen waxaa dhahay dadka iyaga la midka ah
sababtoo ah alle wuxuu leeyahay walladii am xasiba alladina fi quluubihim maradun an lan yukhrija allahu adghanahum ma waxay u malaynayaan kuwa magaranaysaa qalbiga ka buka inaanaan soo saarin calaamadahooda oo calaamadahooda ilaahay waa maxay ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم هذانو دون وانو كتوسي لهين محمدو أما قف كان لها الليو وانو كتوسي لهين ولا تعرفنهم في لحن القول وحانت كذر نسابو ألا ليهي هذا الكأي اللي حينيان أنيقا مياد إيقا مقشين شيطان بو قف عابدي أما قف أيا قال إيقا ميدان مقل waxaan dhahay shaytaanka ay la shaqaysteen haddaan u soo noqdo illuminariga qaybo badan ay leeyihiin qaar naftooday shaytaanka iibiyeen oo shaytaan bay allah u haystaan u caabudaanba ilaah camal qaarna waxay la galeen heshiis oo muddo ayuu ku soo eegyahay heshiiskaasi oo contract ay kala saxiixdeen qaarna waxa ka wada adigu marka haddaan su'aalahan adigu waxa ka wada ciyaalkani contract bay la saxiixdeen geedkan shaydaanku ma mid soo baxayo oo isu soo muujinaya mise waa sanab la caabudayo muxuu yahay shaydaanku xaguu ka soo baxaya ya xaguu ka soo baxaya shaydaankana sheegaysid xaguu ka soo baxaya muxuu ka soo baxaya ma dhulka ka soo baxaya ma cirka ka soo baxaya xaguu ka imaanaya oo heshiiska shaydaan la socdo heshiis lala galayo adigu ma aragtaa ayadii adiguba waa aqrinaysaa ma ku aragtaa annaguna ma aragno ciyaalku sidee ku arkaan shaydaanka ee contractiga la saxiixanayaan ee caanka kaga dhigaya oo ummad badan uu raacinayo dabadudays arrinka waxbaa ka khaldan arrinkan shaydaanka isagaaba soo shaacinayo dadka barahayo oo halla yaqiinsadadaas ku haya shaydaankan annagu maanan garanaynin hadda ka hor mama maqlin aduun baan kaa maqlaynayo xitaa waxa anigu hadda adiga kaa baranayo oon kaa maqlayo ciyaalka yaryar oo ma aragtay aniga iga yaro oo anigoo aan dhalay oo sii dhalay ayaaba waxaas dhagaha ugu shubaysaa ummadoo dhan baad dhagaha waxaas ugu shubaysaa aan garanayn xasbunallah wa nicmal wakiil qofbaa saar laga tumayaabaa maqli jiray durbaanay garaacan hadda kan durbaankii noo garaacaya ilaahayo naga qabo midkan hadduu shar wado idii soo qabto kuwa magaranaysa heshiiska la saxeexday waxaa ka mid ah fanaaniin raabariin ah oo muslim ah waxay dhahaan xitaa 5% muslim ayaan nahay ama 10% muslim ayaan nahay haddana way raabgareeyaan illuminarigii magaranaysa ay la shaqaystaan contract ay la saxeexdeen magacyadoodii hadda ma hayo berigaan heesaha iyo waxyaabaha ku walnaa ayaa iigu dambeysay 2018 wixii ka horreeyey waxaa kaloo ka mid ah 69 ninkan la dhaho caanka ah waxa weeyaan nin isaguna illuminarig ah wuxuuna sameeyaa intuu heesaha markuu soo qaadayo intuu aado Africa ama meel dad madow joogaan ayuu lacaga u qaybiyaa sabab muxuu u sameynayaa ma ilaahay buu waji kaga rabaa maya dadka ayuu ku soo jiidanayaa si loo jeclaado waa sixir ka mid ah sixirada ay isticmaalaan dadkaasi waxa kaloo ka mid ah Drake ninka la dhaho intuu mall iska galo ayuu dhahayaa qaata wax kasta free ay idin tahay ma ilaahay buu waji kaga rabaa mise dadku inay jeclaadaan ayuu rabaa maye jacayl buu samaysanayaa waa nooc san soo sheegay ka mid ah sida ay dadka u sixraan waxaa jira dad badan oo magaranaysaa maansooniyiinta la shaqaysta ama magaranaysaa ka mid ah dadka qaar uu tilmaamay dad gaala of course haday shaydaan caabudaan haday sanab caabudaan iyo haday excuse me carada caabudaan waa dad shaydaana qaarkood ilaah maba yaqaanin ya qaarkood they are without religious waxay dadkaas iyo dadkan la isugu soo qabanaya teeda kale ninkaas waxa weeyaan sixir kuma shaqeysto baa kuma shaqeysto dadka qaarka uu sheegay afkooda ku soo xaan baxay rabku qaado ku soo xaan baxay what the heck is wrong with you what the heck is wrong with you maxaa ku hadlaysaa waxa adiga dadka baraysid adiga laftirkaada in lagu dhabagalo weeyaan anigu ninkan waxaa leeyahay iska qabto isaga dadka wax baray kuwa madax ah kuwa magaranaysa soo raadgareeya kuwa soo heesa qaar aad u fara badan dhammaantoodana waan keeni doonaa cadayntooda maadaama Soomaaliya tihiin dad magaranaysa war jecel haddii aan keeno talow dadka ma ka fogaan doontaan talow sixirkii budubadhaagii sharkii waxay soo laaqayaan miyaad iskaga tagi doontaan Allahu yaclam aniga korkayga waxa saaran
in aan idiin soo gudbiyo wixii aan soo baadheen xaqiiqo u hayo idinkana ama Sidee ku soo qaata baartay? ama ha qaadanina Xataa noomaadan sheegin siduu ku soo baaray, haddaan siduu hadda ku usoo gudbo ogaaday. saddexdan qof aan tilmaamay caddaynta aan ku hayo waxa weeyaan wejiga shaydaanka weligii yaa arkay ama sawir yaa ka arkay wejiga ibliis sida uu u samaysan yahay halkan ka eeg sidaa ayuu u samaysan yahay waxaa jira calaamado badan oo dadku isticmaalaan sida labada farood oo saa loo taagay peace and love ay dadka qaar u isticmaalaan ama magaranaysaa bye bye oo kale ama lagu kala geey oo kale waxaa jira saan oo kale dadku nooca doonaan hayskaga macnaystaan waa laba calaamadood oo ka mid ah calaamadaha shaydaanka oo haddaad aragto haddaad ku qorto ibliis ama satan ama devil haddaad ku qorto googleka waxaad helaysaa taalo ibliis laga sameeyey uu faraha sidaa leeyahay waana calaamad ka mid ah calaamadihiisa laakiin istan ma garanaysaa dadka oo dhan baa isticmaala cid taqaaniyo cid aan aqooninba iska dhaaf tanna sidoo kale labadii gees ee shaytaankay sheegaysaa dad badan baa isticmaala kuwa yaqaaniyo kuwa aan aqoonba iska dhaaf iyadana waxaa jira kuwa gaar ah oo ay sameeyaan keliyata dadka waxaa ku shaqo leh oo maxay sameeyaan wejiga ibliis bay gacantooda ku sawiraan wejiga ibliis siduu u samaysan yahay ayay gacantooda ku sawiraan lama gacmahooda ku sawiraan ama jidhkooda ayay ku sawiraan oo cumreyn ayaan idin tusi doonaa isaga oo jidhkiisa ku sawiraya ama lugihiisa gacmihiisa iyo magaranaysa ay ku sawiraya ayaan idin tusi doonaa waxa kaloo idin tusi doonaa maslax mideeya oo labadiisa gacmood ku sameynaya iyo samiixa oo labadeeda gacmood ku sameynaysa wejiga ibliis sida uu u samaysan yahay calaamada saana imse jeer baad aragteen samiixa oo saale hal shay il bay tilmaamaysaa soo maaha ka soo gudub waxaasoo dhan aniga maydaan iga maqal in aan dhahay qof baa gaal ah mana iga maqli doontaan dhihina maayo qof baa gaal ah dembigaasna anugu ma qaadanayo mana dhihin qof baa shaydaan caabudaya hadalka ayaa la leexiyey hadalka ayaa la leexiyo waa calaamaduhu alla ii sheegay ama inoo sheegayba dhammaanteen in ma garanaysaa lagu yaqaano dadkaas in ay hadalka leexiyeen sidii loo yidhi maayo si kale ay u dhahaan oo liilba liil maalmihii aan ma garanaysaa ishaysanay waa kii dhahay shaydaan baad igu tiri anigoona shaydaan ku dhihin halkuu ku maqlay anigoo shaydaan baa tahay dhahaya hadalkaa la leexinaya marka waa calaamad ka mid ah calaamadaha lagu yaqaano wala tacrifannahum fii laxni alqowl buu ilaahay leeyahy subxaanahu jalla fii culaa haddaba ila daawada wejiga shaydaanka ama wejiga ibliis sida ay dadkani gacmahooda ugu samaynayaan asxaabta waa ka curadkii noo imid asxaabta waa ka curadkii noo imid يا الله indhihiina ayaa idin macallin ah it doesn't translate anything wax ay ka turjumaysa hadda aniga taas uma jeedo ah ama qof ma garanaysaa bariis ku raadinaya wax qor bariisku ma raadinayno anigu kale shakhsiyan bariisku ma raadinayo mana ku haysta bariis waan iska soo galaa soo waxa garata maaha iyadoo rabadaanna waxaa u soo galay ciyaalada yararka ood ka oohinaysid oo waxa weeyaan oo ilaa iyo yoomul qiyaamaha kugu dhagan oo kula ilkan ku taaganahay ya oo balaayada ka sheegaysid leedahay macnaha waxaas ay la shaqaystaan ama ay ku xiran yihiin ama ay ka hadlaan so you need to stop you have to judge hadalladan abaraysid dadka aan aqoonin qof Soomaaliya yaqaanay waa yaryahay ilaa waxaan adigu abaraysid dadka you need to stop waxaan adigu faafinaysa inta quraan aayad ilaahay faafin lahayd oo diinta faafin lahayd oo dadka bari lahayd oo haddii aad ku dhaantid aad wacyi gelin lahayd ma ahan ina maanta la soo fariisatid ibliis baa dadku caabudaan ama ibliis bay saas ku yihiin you should at least inta ilaahay ka cabsatid xadiista akhrisid oo dadka aad wacyi gelisid oo even shaydaankaasaa jira waa ina ilaahay ka magan gashin aad tiraahdo ma ahan ciyaaladii inaad show ku ridid ummadana wax aqoonina aad wax bartid million people ayaa kaa baratay waxa aad maanta ku hadlaysid hadday ku dhaqmaanna waxaas maanta oo ay raadiyaanna dee adaa ka mas-uula because adaaba balaayada faafinaysid intaas anugu ka baxaya waxaan leeyahay caruuraha yararka wiilkani ku dhagan yahay
hortooda ha u socdeen waxa weeyaan ilaahayna ha ka cabsadeen alla ka cabsigana ha badiyeen diintoodana iska akhristeen qur-aankoodana iska akhristeen salaadoodana iska badiyeen waa waqti rabadaan waa waqti forgiveness qof walba uu raadiyo ilaahay ka cabsado oo waxa weeyaan oo salliga rasuulka badiyo oo xamdiga ilaahay badiyo oo dambi dhaafna ilaahay uu weydiisto rabadaanka qof walba oo muslimana ilaahay ka aqbala asagana ilaahay dambiga uu ku jiro ama u galay ha ka cafiyo anagana hanaga cafiyo waxa weeyaan kuwii rabadaanka cibaadaystana allah nooga dhigo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasaan khiyaarta sharafta la idinku dhaafo